asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada xubinta nuxurka dhacdooyinka oo si maalinlaa aad kala socotaan bogga radio kismaayo ee codka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxa aan markaa xubinta nuxurka dhacdooyinka qodobada aan diradda ku saari doonno waxa ay kala yihiin maraykanka oo sheegay in duqayn ay ka fuliyeen jubbada hoose lagu dilay xubno ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab hanti dhowraha qaranka oo hay-adaha dowladda ka joojiyey gelidda heshiisyo haddaba maxay yihiin heshiisyada tuhunka hanti dhowraha halkee ayuu taabanayaa xubinta nuxurka dhacdooyinka ayaynu idinkula wadaagi doonnaa iyada oo faahfaahsan laamaha amniga soomaaliya oo gacanta ku dhigay askari ku eedaysan dilka taliya ku-xigeenkii ciidanka nabasugidda galmudug oo maalmo ka hor lagu dilay caabudwaaq nuxurka dhacdooyinka xubinteenna ayaynu diradda ku saari doonnaa iyo maraykanka oo 1.2 bilyan ugu deeqay soomaaliya iyo dalal kale haddaba soomaaliya lacagtan maxay uga faa'iidaysan doontaa xubinteenna nuxurka dhacdooyinka ayaan idinkula wadaagi doonnaa daawadayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska nagala socda boggeenna facebooka ee radio kismaayo ee codka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland nala jooga daawadayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudan oo ilaa iyo warbixinadan aad ka dhammaysataan wahagaag haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in ay duqayn dhinaca cirka ah ay ku qaadeen saldhigyo ay kooxda argagixisada al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose qoraalka ayaa lagu sheegay in duqaynta ay ka dhacday deegaan fog oo markaa ku dhow deegaanka labikuus oo ka tirsan gobolka jubbada hoose qiimaynta hordhac ah ee taliska helay ayaa sheegaysa in 2 ka mid ah kooxda argagixisada al-shabaab lagu dilay howlgal iyo weliba in aysan jirin dad rayid ah oo markaa ku dhaawacmay oo lagu dilay ama lagu yiri ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay taliska maraykanka ee africom sidoo kale qoraalka ayaa lagu yiri dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maraykanka ayaa weli waxaa ka go-an la dagaalanka kooxaha argagixisada si ay ugu hortagaan dhimashada dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ayaana lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeed ka soo baxay taliska maraykanka wahagaag hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa soo saaray amar lagu mamnuucayo in hay-adaha dowladda soomaaliya ay galaan heshiisyo waaweyn inta laga ansixinayo xukuumad rasmi ahi war-saxaafadeed uu soo saaray hanti dhowraha guud ee qaranka maxamed cali afgooye ayaa lagu sheegay in xafiiska hanti dhowrka uu ka hortegay heshiisyo ku kacaya malaayiin dollarka maraykanka oo saameyn dhaqaale oo taban ku yeelanaya dalka xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uu markaa ka warheray in qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya ay bilaabeen qorshaha hanaanka ee markaasi ee lagu meelmarinayo dhaqangelinta heshiisyo waaweyn oo markaa ay ku kacaya malaayiin dollarka maraykanka kuwaas oo dalka markaa ku yeelanaya saameyn dhaqaale oo taban xafiiska ayaa markaa ka hortegay isla markaana joojiyey heshiisyadaasi isaga oo ku wargeliyay dhammaan hay-adaha dowladda inaysan geli karin heshiisyo inta laga helayo xukuumad rasmi ahi oo xilka la wareegto ugu dambayntiina xafiiska ayaa arrinkan horey uga soo saaray warqad uu ku joojiyay gelitaanka heshiisyada waaweyn ee inta lagu guda jiro wakhtiyada xilgaarsiinta ahi amarkan ka soo baxay hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa daba socda kadib markii ay soo baxday in xubnaha golaha wasiirada ee xilgaarsiinta in ay heshiisyo ku kacaya malaayiin dollarka maraykanka ahi ay la galeen shirkado iyo dowlado kale iyaga oo ka faa'iidaysanaya wakhtiga kala guurka ahi wadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska nagala socda boggeenna facebooka ee radio kismaayo weli waxaan ku guda jirnaa xubinteenna nuxurka dhacdooyinka markan waxaynu eegaynaa ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen duleedka degmada caabudwaaq ee gobolka waqooyiga ee dhinaca galgaduud waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen askari ka tirsan ciidanka militariga oo ku eedeysan dilka taliya ku-xigeenkii ciidanka nabasugidda maamulka ee galmudug faarax cumar geelle iyo walaashiisa ciidamada ayaa askarigan markaa baadigoobaya 2 maalmood ee la soo dhaafay waxaana markaa lagu sheegay in uu markaa u baxsaday dhinaca gobolka mudug ha yeeshee ay ka qabteen dhinaca deegaanka lagu magacaabo ceel gargaar ee duleedka bari ee degmada ee dhinaca caabudwaaq
saraakiil ka tirsan laamaha amniga degmada Cabudwaaq ayaa sheegay in soo qabashada ninkan ay ku timid xiriiro ay la soo sameeyeen dadka shacabka iyaga oo markaa ugu mahadceliyay kaalinta ay ku lahaayeen soo qabashada ninkaasi. Sidoo kale saraakiisha ciidamadu waxa ay sheegeen in askariga ka tirsan ciidamada militariga ee Soomaaliya ee ku eedeysan dilka degmada Cabudwaaq loogu geystay taliye ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda maamulka Galmudug ay maxkamad horgeyn doonaan si cadaaladda loo marsiiyo. Waa hagaag daawadayaal, qaybihii ugu dambeeyay ee xubinta nuxurka dhacdooyinka ayaynu isla soo gaarnay. Markan waxaynu eegaynaa dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in ay bixinayso lacag dheeraad ah oo gaaraysa 1.2 bilyan oo dollarka Maraykanka oo gargaar bini'aadanimo ahi, taas oo ay ugu tala gashay dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee hadda ka jira geeska Afrika. Madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee Maraykanka ee loo soo gaabiyey USAID oo warkan ku dhawaaqday ayaa markaa sheegtay in lacagtan lagu fangarayn doono gargaar cunto xaaladaha degdega ahi, sida lacag mucaawino oo kaash ah, tallaal iyo daawooyin la siin doono caruurta, dumarka aadka u xanuunsan iyo kuwa dayacanba. Waxa ay markaasi sheegtay in hadafka lacagtani ay tahay in looga hortago in markaa geeska Afrika ay ka dhacdo macluul, iyada oo markaa ku boorisay dalalka caalamka oo ku jiro Shiinaha inay gacan ka geystaan xallinta cunto yarida ee ka dhalatay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Madaxda waxa ay sidoo kale dhinaca Maraykanka ee dhinacyada gargaarka u qaabilsan dhammaantoodba waxa isla qireen in xaaladaha ugu daran ee abaarta ka jirta dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, Kenya in ay xilligan u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. Sidoo kale ay xilligan isla qireen dhammaantoodba in markaa dhammaadka toddobaadkan ay booqan doonaan geeska Afrika si ay markaa u qiimeeyaan xaaladda ka jirta. Abaarta ka jirta geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya ayaa lagu sheegay tii ugu xumeyd oo gobolka ku dhufatay ku dhowaad muddo 50 sano xilligan laga joogo. daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta nuxurka dhacdooyinka oo aad kala socoteen bogga Facebook ee idaacadda Kismaayo codka Jubbaland. Tan iyo kulantii dambe saaxiibayaal, nabadgelyo ayaan idin leenahay. waadna ku mahadsantihiin daawashada iyo la jaanqaadidda xubintan sida maalinlaha aan halkan u soo gelinno, ee idinkuna waxaan idin leenahay si toos ah waxa aad markaa kala socon doontaan boggan si maalinlaha. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.